goobtan hadda aan ku suganahay waa xerogeel ku taala duleedka magaalada Hargeysa balse dabcan waxa ay dad badan oo boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ku sugan ay u tahay goob dalxiis oo yimaadaan maalmaha fasaxa gaar ahaan jimcaha oo kale waxay halkan u yimaadaan si ay u dhamaan caanaha geela ee halkan iyagoo oo fresh ah ama daray ah laga liso geela sidoo kale dadka qaar ee halkan yimaada waxaad arkaysaa in ay sawirro ku galayaan xerada geela iyo waliba geela laftarkiisa waxay ka duwan tahay nidaamkani waa nidaamka casriga ah ee dhaqashada geela dabcan ee casriga ah iyadoo arkaysid waayadii hore markaad tagto goob geel lagu dhaqanayo dabcan waxaad arkaysay ood iyo xerogeel dhir lagu ooday oo geela loogu talagalay inay halkaasi habeenkii lagu xareeyo balse sidaad arkaysaanba goobtani waa goob deyr iyo mataqaanaayay nidaam casri ah loo farsameeyey oo xilli kasta oo halkan ay ku sugan yihiin geelu waxay helayaan raashin iyo cunto ku filan oo ay ku keeni karaan caano aad iyo aad u fara badan sidaad la wada socotaanba waayadii hore waxa aad u adkayd in marka xilliyada roobka dabcan maanta oo kale oo halkan ku suganahay roob ayaa ka da'ay waxa adag in xilliyadaas oo kale waayadii hore la helo caano geel oo fresh ah balse tani waxay suurto gelisay nidaamkan casriga ah ee haatan loo dhaqanayo xoolaha ama geela in si fudud lagu heli karo caanaha geela anaguba maanta halkan si weyn baan caanaha ugu dhannay waxa halkan hadaba ila jooga saaxiibada oo ka yimid magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida waxa aan bal weydiin doonaa iyagoo ay ku cusub tahay nidaamkan dhaqashada casriga ah ee geela Shacayb Obsiyo oo isagu kamid ah wariyaasha ku sugan ama mataqaana ka yimid magaalada Jigjiga dabcan Shacayb soo dhawow bal ka waran haddii aan ku weydiiyo adiga Shacayb ahaan maxay kaaga dhigan tahay maanta bal goobtan lagu dhaqanayo caanaha geela ee aad timid خالد waa mahadsantahay halkan igu soo dhaweyso xirada dhaqashada casriga ah ee geela anigu loo jir baan ahaan jirayo markii aan yar meel geel lagu dhaqayo iyo si loo liso ka sheekeyn maayo Cabdiraxmaan baa hadhow ka sheekeyn doona waliba waxaan leeyahay maantana caana cabad leedihiin walow ay yartay caana geel waa la cabaa iyagoo hadda la soo warshadeeyo laakiin hadda iyagoo fresh ah oo indhahaygan ku arkay iyagoo la lisayo oo gaawihii lagu lisay hadda aad keentay waxaan leeyahay hadday jeexaan ay jiiraan ragaha loo raaco ha la soo xiro idib caanaha looda iyo caanaha geelo waa kala duwan yihiin marka waxaan rumaynayaa mahmahdii Soomaaliyeed ahayd ninka laxaha si dhowrayo dhaqasho waa geel horta anigu soo saaxiibkay Shacayb sheegay anu ma hilo jir waxaan ahay geel jir oo abtiyaasha baa geelle xilliyada fasaxana waxaan aadi jiray geela si aan caanaha geel soo dhamo saddex bilood fasax waxa laga yaabaa in geela uu daba cararo oo caanaha soo dhamo marka dadkii caanaha ku soo koray ee caanaha geela dhilka qaadan jiray ardayga geela saxan jiray baa kamid ah geel horta waxaan leeyahay hal baan leeyahay oo abtiyaasha baa siiyay hashayda waxaan filayay in ilaa hadda inay saddex marayso marka waxaan leeyahay cisho dhawaad gabadh aad doonto aad ka bixis baasna geel Cabdiraxmaan geelna waad soo dhaqan jirtay dabcan oo waad idan deefaanaya ilaa haddana caanihi maad cabin markaas ay isku qabanaysaa waxaan isla ilka gacanta maad ku haysaa waxaas lahaa war saaxiibada armad xoga tag weeyda marka nin caana dhana uma eekid balaan aragna saad u cabto balse waxaan ka cabsanayaa inaad ku caawidaan meesha وكان روب كذا صدّتي صدّر كيسان بعد عبد الرحمن ولي عانيه يعبيا طبعًا جيلي وكا واحد دريمي سنتشوي جواب تنولي هاي مدرسة آدي أدو قروح بدن روب كذا نهاية الحمد لله واحد وقت وحل وجرا برواقع أو طير تان ملاينا يعني تحلية ذا وكلا جيلي وكساو عرّيا جيلي صدّر كيسان بقابي لو تلاقي حلية الروب كأما كلها أيوه قلي أو جواب ده ودكسيمة كده أيوه ده صدّر كيسان بق aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaan saaxiibada waxaan idin rajaynaynaa waqti wanaagsan maalin wanaagsan fasax wanaagsan